waxaad rabtaa inaad gurigaada iska sii gado si guri kale u iibsato laakiin waxaad rabtaa inaad samayso lacagta gurigan maadaama gurigaada kor u kacay waxa lacagta loo yaqaan equity-ga inaad ka soo saarato lacagtaas ay u isticmaasho down payment iyo closing cost so nidaam loo maray ayaa jira nidaamka ayaan ku sharaxaya maanta walaal soo dhawo magacaygu waxa la yiraahdaa Daahir halkan waxaan kaga hadalnaa real estate investment waxa loo yaqaan personal development waxaan ahay the founder of Sahan Investor oo platform dadka Soomaalida ka bartaan real estate investment insha Allah nagu soo boqo sahaninvestor.com hadaa rabtaa arrimaha guryaha inaan aniga ka caawiyo inaad guri iska sii iibso ama guri cusub aad iibsato insha Allah iga soo qabo website-kayga sahanrealty.com waan ku bilaabayaa soo qorshaha hadaa bilaabayso inaad gurigaada iska sii gadaa rabto si kale guri kale u iibsato waxa ugu horeeya aad sameynayso waa inaad diyaar garowdaa diyaar garowgaas oo kamid ah dhaqaalahan adiga ma dhisan tahay ma awoodaa guri kale inaad iibsato haday tahay taasi waxaad aadaysaa bangiga aadaysaa waxa u geynaysaa W2 ama 1099 midkay tahay iyo pay stubskaada iyo driver license-kaada ku weydiin doonaa bank statement intaas taa u geyso waxa ku soo siin doonaa warqad loo yaqaano pre-approval letter warqadaas oo ku ogolaan doonto intaad u qalanto waxaan u sheegi doontaa bangiga in gurigaada iska sii iibin doonto laakiin taas intay dhaceen ka hor waxaan kula taliyaa dadka real estate agent inay la shaqeeyaan ee la fadhiistaan oo real estate agentigaasi oo ku siin doono wax loo yaqaano CMA oo comparative market analysis ku ogolaanaya gurigaada suuqa intuu ka joogo soo gurigaada haddaad ku iibsatay 350,000 maanta uu marayo 550,000 uu marayo kale soo lacagta farq u dhaxayso waa lacagta u dhigi karto down payment u dhigi karto ku ogolaanayso so taasi haday dhacdo waxay noqonaysaa gurigaadii inaad suuqa geliso so hadda gurigaada suuqa sida ku gelin karto iyo sida lacag fiican ku iibin karto video idil baan ka soo sameeyay halkan ku soo dhigi doonaa sad aragto so hadda guriga suuqa geliso laakiin marka suuqa geliso hadii markii dad ay ku soo diraan offer wax lagu soo diri doonaa in qofka ka iibsanayo contingency waxa uga dhigaysa mashruuda uga dhigaysa in adiga gurigaada iska sii gadayso ay ku xiran tahay guriga iibsanayaan laakiin ilaa gurigaada la iibiyo inay gurigan ka guureyn adiga so kadib waxa noqonaysa adigii had ina guri raadiso real estate agent hadana ina la shaqeysan noqon doonta oo guriga ku soo tuso guriga ka heli doonta gurigaasi haday aqbalaan aad u dirto purchase agreement-ga hadda real estate agent la shaqeyso waxa loo yaqaan purchase agreement ku draft gareyn doona ina guriga iibsanayso asaga la gareyn doono like inspection-ka appraisal-ka whole process asaga la gareynaya everything asaga qabanayo so taas markay dhacdo waxa dhici doonta hadii aad soo ogolaadaan guriga waa iibsanaya dhado warqada loo diro purchase agreement-ga loo diro ay soo ogolaadaan haddana waxa noqonaysaa in loo yaqaan contingency clause lagu daro oo la dhaho contingent upon the sale of the current property inaan gurigan la iibin karin ilaa gurigaada la sii iibiyo ku xiran tahay waa heshiis mararka qaar way ogolaanayaan mararka qaar way diidayaan haddii diidaan no problem another property kala raadsanaysaa haddii ogolaadaan waxa la aadinayaa escrow wax loo gudbinaya title company loo gudbinaya everything so gurigaadana kana waa iska iibinaysaa kana waa iibsanaysaa at the same time so at the same time waxa dhici doonta waxa laga yaabaa 1 month gudahooda inaad gurigaada cusub kan kale ku wareegto kan kalena gurigaada kale aad close garayso that's why laakiin muhiim ay tahay inaad la shaqeysaa real estate agent oo system fahansan oo macquul gal ah inaad la shaqeysaa so hadda labada saas samayso saasay kugu dhamaanaysaa laakiin wax ugu muhiimsan listed agent marka la fadhiisanayso muhiim waaye gurigaada qiimihiisa inuu ogaado muhiim aad bay muhiim u tahay taas haddii ogaado waxaa kaloo inuu ku sharxal rabo the whole entire process ana hadda booklet ayaan haystaa aan dadka siiyo mostly hadda more printer aan u baahnaan sameyn insha Allah waxaan ku siinay the whole process saa u sameyn lahayd laakiin haddaa rabto inaad ogaato sidaad u sameyn gurigaada suuqa golin lahayd insha Allah video soo daabo so inta samaantii haya hadaa rabtaan real estate investment ina barato oo ay kamid tahay fix and flip buy and hold subject to insha Allah nagu soo boqo website-kayga sahaninvestor.com hadaa rabto gurigaada inaad iska sii iibiso ama guri cusub aad iibsato ana waxa ka soo qaban kartaa website-kayga sahanrealty.com assalamu alaykum